kulanti wacan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii sahan oo aad uga barateen TV-ga Universal goorahan oo kale sahan caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa maamul goboleedyada ku soo badanaya gudaha dalka Soomaaliya isla markaana lagu soo dhiso dalka dibadiisa sida Soomaaliya 1991 markii dawladii militariga ee xukunka laga tuuray dalka waxa uu soo maray marxalado aad u kala duwan dil dhac kufsi boob iyo daryeel xumo dagaaladii sokeeye ee dalka ka dilaacay dabiiqadii 90kii iyo horaantii 91kii ayaa ka dambeysay jabhadihii ka aas-aasmay dalka dibadiisa kadib markii ay go'aansadeen inay xilka ka xayuubiyaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariiste marxuum Maxamed Siyaad Barre inkastoo markii xilka laga qaaday muddo kadibna madaxweyne loo magacaabay Cali Mahdi Maxamed laakiin ujeedadii ahayd in dalka nidaam ka wanaagsan kii hore in loo helo ayaa dhibtu sii badatay waxaana ka bilaabmay dalka dagaalo hor leh oo ay dhex maraan kooxihii xilka ka tuuray Siyaad Barre sidaas daraadeed ilaa iyo hadda lama garanayo Soomaaliya waxay u dagaalamaysaa oo dalku ka dagaalay bishii May 18 1991 Somaliland ayaa ku dhawaaqday inay gooni isku taagto isla markaana ay ka goodo koonfurta Soomaaliya iyadoo kolkii hore la isku oran jiray midowga gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo iminka Somaliland waxa ay haysataa nabad kala dambeyn iyo horumar oo iyagu kaliya samaystay iyagoona taageero aad u weyn aysan ka helin dalka dibadiisa maamul goboleedkii ama dawlad goboleedkii ugu horeeyay dalka Soomaaliya laga sameeyo ayaa waxa ahayd 1998 dawladii Puntland oo hogaamiyaha uu ka ahaa amba madaxweynaha uu ka ahaa mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed laga soo bilaabo 98 ilaa maanta oo ay ku beegan tahay sanadu 2011 ayaa waxa dalka Soomaaliya loo sameeyay maamul goboleedyo aad u fara badan marka aad eegto gobolada dhexe ama bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ka jira maamul goboleedyo ku dhow 10 halka gobolada Jubbooyinka Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe iyo waliba gobolka Banaadir iyana maamul goboleedyo sidan oo kala ah loogu soo dhawaaqay dalka dibadiisa Puntland waxa ay soo martay dhowr madaxweyne iminka waxa talada haya madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole oo kamid ah qurba joogta Soomaalida ee qaaradda Australia deegaamada ay Puntland ka taliso waxa ka jira kala dambeyn xasilooni iyo horumar waayo waxa ay haystaan deked ay isticmaalaan ganacsatada waana ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha dawladdu ka soo gasho hase yeeshee 8 sano kadib waxaa lagu dhawaaqay maamul goboleedkii labaad sanadii 2006 oo loogu magac daray Galmudug State iminka waxaa talada haya madaxweyne Caalin oo isna kamid ah qurba joogta Soomaalida ee dalka Britain ujeedada loo aasaasay Galmudug waxaa loo aasaasay inuu u adeegto bulshada ku nool gobolada dhexe iyadoo u taagan in ay buuxiso kaalinta adeeg oo ay banaysay dawladii dhexe ee burburtay madaxweynaheenu wadawaan u baahnayn kala dambeeyliyo midimano horseede maanta waa dhamaashaad muddaad sugayne maanta waa dhamaashaad muddaad sugayne mahura walaaka maamuusa dhaweyniyo mafikirida diyaarabo waad mutaysatee waddankan Ingiriiska waa waddankii aan ka tagay ee aan ka aaday Galmudug haddana isagii ayaan ku soo laabtay sharaf bayna ii tahay caawa inaan dadkayga dhex joogo oo aan la damaashaadayo labadan maamul oo u dhaxaysay muddo 8 sano ah ayaa kadib waxaa bilaabatay in maamul goboleedyo isi soo taraya laga soo dhiso dalka dibadiisa taasoo kolkii horena ujeedadiisu ay ahayd
in qoomiyad walba ay gobolladooda ka macaashaan isla markaana ay u samaystaan nidaam kala dambayn maadaama dawladdii dhexe weli ay awoodi la'dahay inay dalka oo idil xukunto. Soomaaliya waqtiga hadda lagu jiro way ka duwan tahay taariikhihii hore oo hadda markii dawladnimada la haystay iyo waqtiga dawladnimada ka horeysay iyo way ka wada duwan tahay. Hadda waxay ku jirtaa casri, waxay gashay yani marxalad cusub bay gashay. marxaladaas oo aad moodo intii dagaaladu wadanka ay ka jireen oo dalku burbursanaa meeniskii la adeegsaday wadanka burburintiisa oo qabiilka ahaa mid ka duwan hadda inuu abuurmay. ma rajaynayno ma dhiirigelinayno inay Soomaali kala qobanto ay kala gogo'do, laakiin waxaan dhiirigelinaynaa in ay gobolada helaan waxa ay caasimadda uga baahnaan lahaayeen oo ay goboladu dhismaan si ay xataa caasimadda culayska uga kala yaraado, taasoo sahlaysa xalkii nabadda loo mari lahaa. sidaan ogsoonahay gobolada dhexe waxaa ka jira ilaa 3 maamul goboleed oo ka mid yahay Puntland, Ximini Xaab iyo waliba maamulka Galmudug. dabcan maamulkiinana wuxuu noqon doonaa kan afraad. sidee baa marka maamulada kale halkaas ka jira wala macaamili doontaan? marka koowaad horta waxaan ku qasbanaa in annaga teena daryeelno. Soomaalida ayaa waxay ku maamulada tiisi daryeela tukala ku dara. annagu waxaan rabnaa marka hore inaan shirweyne ku qabsano gudaha Soomaaliya. shirweynahaas oo ugu talagalnay inaan maaragtay dadkayga maamul ugu sameeyno. markii aan guuleysano annaga oo limin gaarno dadka walaalaheena nala degan oo waxaan kula dhaqmi doonaa daris wanaag. haddii ayagu diyaar u yihiin marka ayaan gacan u fidin doonaa. sababta annaga waxaan naga go'an inaan raadino Soomaali weyn. hase yeeshee dhowaan ayaa waxaa qurba joogta Soomaalidu ay ka war heleen in shirka ama doorashada soo socota Soomaaliya loo sameyn doono qaab gobolaysi in lagu xukumo. sidaa daraadeed ayaa qoomiyad walba ay ku baraarugtay inay ku dhawaaqdo maamul goboleed iyaga u gaar ah. laakiin waxaa la yaab leh in gobolada qaar loogu dhawaaqay maamul goboleedyo magacyada uun ku kala duwan laakiin gobolada isku mid ay ka yihiin. tusaale, Hiiraan waxaa ka jira 3 maamul goboleed, waa Hiiraan State, Hiiraan Midland iyo Dooxa Shabeelle. haddaad eegto Jubbooyinka iyana waa la mid amaba ka sii daran. si kastaba ha ahaatee maamul goboleedyada ayaa iminka waxa ay marayaan 18 haddaysan ka sii badnaynba. Puntland, Galmudug State, Ximini Xaab, Mreeg State, Waaxyo Waadi, Central Somalia, Hiiraan State, Hiiraan Midland, Dooxa Shabeelle, Jubba Ras State, Jubba Jazeera, Jubbaland, Azania, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Udubland, Banaadirland, SSC Soomaaliya iyo Awdal State. tirkoobkii la sameeyay gobolada ayaa waxay ahaayeen 18 gobol. waxaadna moodaa in maamul goboleedyadu ay ka sii badanayaan gobolada ka jira dalka Soomaaliya. laakiin su'aasha ayaa waxa ay tahay sidee bay u qaybsan doonaan gobolada ka jira Soomaaliya maadaama maamul goboleedyadu ay ka sii badan yihiin. ku dhawaaqistan maamul goboleedyada ayaa waxaa lafdhabar u ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurba joogta ah. sidaad arkaysaan waxa ay gunta u xirtaan inay xaflado u dhigaan madaxda ay doorteen inay ku soo dhaweeyaan dalalka ay ku nool yihiin, iyagoo weliba intaasi u dheer inay adeegsadaan fanaaniinta reer London inay u sameeyaan heeso ammaan ah oo deegaamada iyo dadkuba lagu ammaanayo.
جوديو قرب يقانيو من الأرض غيريو قبل بالحسنبي قبل بالحسنبي بيشين ولدهاي دولكو كلا بلاري قبل بالولا سريع ولدهاي الدير ما بلدي بيلتا جوديو قرب يقانيو من الأرض غيريو قبل بالحسنبي قبل بالحسنبي يشين ولدهاي دولكو كلا بلاري قبل بالولا سريع ولدهاي الدير ما بلدي
marin mursal oo ka mid ah fanaaniinta inta badan ka qayb gasha xafladahaasi ayaa waxa ay ku tilmaantay in qariirada Soomaaliya ay isku bedeshay sidii doolshada oo kale dabadeedna cid walba ay qaybteedii goosato waxaan fanaaniinteedu waa daalnay Soomaaliya waanigi hore idinku sheegay keeg bay ahayd keeg qof walba cadkiisa la booday ayaanay ugu dambeysay maxaa la yiraahdaa sheekhaasha iyo keegagii ugu dambeeyay qaatay xoogaa hadda keegii laba cad iyo ka hartay qofka nasiib u yeelan doona ma aqaan waa dhamaadeen keegagii laba cad baa ka yaala qaybtanna waxaynu ku eegi doonaa gobolada Jubbooyinka oo iyadu ay noqotay meesha kaliya ay lagu higdamayo amba lagu dagaalamayo iyadoo dhowr madaxweyne halkaasi loo sameeyay waxa kamid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo isna uu ku darsaday in Jubbooyinka uu madaxweyne uu ka noqdo waxaan la kulmay Cali Baab oo isagu ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa aan weydiiyay sida uu arko maamul goboleedka Azania ay uu madaxweynaha ka yahay Professor Gandhi Azania waxaan leeyahay Professor Maxamed Gandhi juhdigiisa yuusan ku dhameynin yani Jubba juhdigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo cilmigiisa ha ku aado yani NFD iyo Ogaadeniya sida dadkaasi oo u xoreen lahaa cilmigiisa iyo juhdigiisa meesha looga baahan yahay Jubbaland ma deeqdo mana qaado yani diyaarna uma ahan daadire kama talin karo juhdigiisa hala aado NFD iyo Ogaadeniya والله waxay faa'iido u yeelan karaan Ibrahim waxa laga maarmi lahaa MPyada Soomaaliya maanta u matala yani dawladda dhexe yani waa laga maarmi lahaa bitaas waxa soo keensan lahaa maamul goboleedyada ayaa la imaan lahaa yani dadku u matalaayo dawladda dhexe ee federaalka that is yani good beginning so good beginning has good ending fikrada ahaan maamul goboleedyada in calankeena subsadaan waa arrin muhiim ah sababtoo ah marka taariikhda dib loo fiiriyo in waqtigii xurriyadda la qaatay kadib in gobol walba wuxuu ku soo gali jiray doorashada calan u gaar ah oo dhaqan ay u leeyihiin dadka deegaankaas degan marka Soomaali ahaan annaga calankeena waa calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah laakiin waa taageersanahay qof walba inuu sameesto calankii uu hidaha dhaqanka u lahaayeen dadka beesha degan haddii aan fiirino wadamada hore u maray waxay leeyihiin in deegaan walba waxa uu leeyahay gobol walba calan u gooni ah marka anagoo taa u tusaale qaadanayno macnaha si aan dadka degan wadamadan Yurub ay u fahmaan arrintaas ma aha arrin ay dadka iska sameysteen in calan ay sameystaan waxay ku saleysan tahay taariikhda iyo deegaanka dadka meesha degan arrinta constitutionka waa arrin muhiim ah in macnaha lagu dabaqo constitutionka gobol walba uu sameysto constitution u gaar ah laakiin la hoos yimaado constitutionka federaalka isku soo duduuboo dhammaan maamuladan aan soo sheegay madaxdooda midkoodna ma tegin goobtii loo soo igmaday waayo sidaan la socono goobahaasi ay maamulka u samaysteen waxaa gacanta ku haya xarakada al-shabaab oo iyagu xukuma gobollo badan oo ka mid ah dalka waxaan isqaadan karin shabaab waxay rabaan iyo fikirka maamul goboleedku ku dhisan yahay ayaan isqaadan karin shabaab ma rabaan dawladnimo ma rabaan sababtoo hadday dawladnimo rabaan inta ay ka taliyaan bay dawlad ka dhisi lahaayeen shabaab ma rabaan qaran Soomaaliyeed ma rabaan sababtoo hadday qaran rabaan maaragtay calanka Soomaaliyeed ma diidi lahayn shabaab shacab Soomaaliyeed inay isu keenaan ma rabaan sababtoo hadday rabaan shacab Soomaaliyeed inay isu keenaan dilka iyo barakacinta iyo baabaa iyo gaajada iyo abaarta ay ku kalifeen shacabka Soomaaliyeed mayna sameeyeen marka shabaab waa dad raba uu dagaalkan inuu socdo ma jiri karaan haduusan dagaalka socon marka meel kastana inay dagaal ka wadaan bay rabaan dadkan maamul goboleedyada sameeyana awood ay ku tagaan yani waxaad arkaysaa Nairobi iyo London iyo meelo kale Sweden iyo lagu sameeynayaa taasi maxay ku tusaysaa maamulkaas London iyo Nairobi iyo lagu sameeyay inayna wax influence ah ku lahayn wadankii gudihiisii inayna ku lahayn inayna teegi karin marka shacabka ay leeyihiin waan mesela uma teegi karaan waxna uma tari karaan waxna kuma kordhin karaan bay noqonaysaa taasi aan la iga qaadanin marka offense aan la iga qaadanin laakiin reality waxa waa maamul marka la dhisayo waa in meesha ay ka talinayso oo maamulka goboleedka ay ka noqonayso waa inay tagaan oo shacabkaasi uu kalsoonidiisa siiyo oo shacabkaas gudihiisa uu ka soo dhaxbaxo waxaan ilaahay mahadi ah in madaxweynaha Hiiraan State mudane Maxamuud Cabdigaab uu maanta ku sugan yahay wadanka gudihiisa isagoo diyaar u ah inuu wax ka qabto ama uu hirgeliyo siday ku mir dhal lahayd Hiiraan State ayna isaga xoreyn lahayd cadawga haysta
runtii sida aad u sheegtaybo gobollada aan sheeganayno waxaa haysta ama ka taliya hadda ciidamada ama taliska al-shabaab runtii xarakada shabaab dad soomaaliyeed waaye shacabka meesha degan 6 gobol oo aan sheegayno ayay ka go'daa yacni go'aanka yacni dadka waxay u baahan yihiin maamul iyo kala dambeyn iyo nidaam yacni shabaab waa laga dhargay yacni khayr allah siiyo ammaan bay sameeyaan laakiin dhibaato badan ayay sameeyaan haddaba arrintan ku dhawaaqista maamul goboleedyada ayaa dadka qaar ay ku tilmaameen inay tahay oo keliya boos xirasho in qof walba hadhow uu ku doodo in uu isaga madax ka yahay meel uusan tegi karin. intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii sahan oo daga barateen TV-ga caalamiga Universal goorahan oo kale isla markaana caawa barnaamijka waxaan uga hadlaynay maamul goboleedyada ku soo badanaya gudaha dalka Soomaaliya oo intooda badanna lagu soo dhisay dalka dibadiisa. barnaamijkeeni sahanna intaas ayuu ku egyahay caawa aniga iyo saaxiibkay Biibaayana waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo.